cagahaagu waxay qabtaa shaqo haddii aad lugaynayso, taagan tahay xilli dheer, jimicsanayso, waa kuwo guud ahaan ay ku dhacdo saacado badan hawl miisaankeeda lihi. waxaa jira habab xal u noqon kara hoosna u dhigi kara caga xanuunka iyo daalka cagaha. hababkani waxay tirtiri doonaan caga xanuunka muddo kooban, waana kuwo soo jeedintooda mudan oo kor u dhaafiya ilaa 7 hab oo kala duwan, waxaanay kaa saacidi doonaan inay si sahlan oo dhaqso ah caga xanuunka u daweeyaan. biyaha diiran ee cagaha lagu meedho ama lagu dhaqo, tan waxay meesha ka saartaa caga xanuunka. ku dar Epsom salt weelka aad cagaha ku dhaqaysid ama aad meeysid, waxay baabi'isaa murqa xanuunka iyo xitaa inay rido bararka cagaha. joogitaanka ama masaajka cagaha, waa inaad ku joogto ama aad ku masaajiso cagahaaga si ay kaaga caawiso caga xanuunka iyo horumarinta dhiig wareegooda. ku dog ama ku masaaji iyaga looshin ama saliid si ay kaaga taageerto hoos u dhigidda isliiska maqaarka, si fududna aad u masaajiso cagaha. bedel kabahaaga laga yaabaa inay iyagu sabab yihiin caga xanuunkaaga. xirashada kabaha waqtigoodii dhaafay, kuwa aan lagu talagelin xarag ahaan iyo kuwa aan ku leekayn oo xidhiidhi ah, waxay saameyn ku yeelan karaan caafimaadka lugaha. baraf isticmaal. inaad cagahaaga baraf saarto waxay hoos u ridi kartaa bararka, kaas oo sabab u yahay caga xanuunka. dulug meelaha aad xanuunka ka dareemayso 5 ilaa 15 daqiiqo waxay hoos u dhigaysaa caga xanuunka iyo bararka cagaha. xidho taageere. waxaa laga yaabaa in xidhashadoodu ay caga xanuunka ka yareyso xilliga aad hurdo habeenkii. daraasad ayaa soo jeedinaysa in taageerayaasha habeenkii cagaha lagu xidho ay saameyn waxtar ah leeyihiin, inkasta oo qarash ku baxayo. cirba xanuunku waa mid guud, waxaanu sanadkii haleelaa in ka badan 1 milyan oo qof. jimicsi samee. waxaad adigu samaysaa jimicsi kala bixi cagta si joogto ah, waxay kaa caawinaysaa caga xanuunka. jimicsiga waxaad ku samayn kartaa faraha cagta, ciribta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee cagta. saliidda kalluunka. omega 3 saliidahani waa kuwo si wanaagsan kaaga taageeraya caafimaadka dareemayaasha iyo ka hortagga caga xanuunka. joogteynta qaadashada cuntada badda ee aad ku darto hanaanka cuntadaadu waxay ka shaqaysaa bogsashada iyo hoos u dhigidda bararka. daraasad dhawaanahan la shaaciyay ayaa hoosta ka xadhiqday in bukaanno qabatimay isticmaalka saliidan uu hoos u dhacay baaxaddii iyo xanuunkii ay dareemayeen ee isu dhadhawaa. dhab ahaantii waa mid adag tahay in la fahmo, waxaanay sababtaa jahwareer inta la darsayo. sidoo kale ka hadalkeedu caadiyan ma aha mid khibrad laga haysto gacmo dhididka, waana mid kugu abuurta qajilaad iyo wejigabax marka aad qof gacan qaadaysid, waana meelaha lagu tiriyo in gacmo dhididka la isugu soo gudbiyo. haddaba mawduuceena maanta ayaynu kaga hadlaynaa sida ugu fudud ee looga hortago isla markaana loo daweeyo gacmo dhididka. dhidid qallajiyaashu waa habka ugu sahlan, kaasoo dhab ahaantii si dhaqso ah u joojin kara dhididka. waa mid waxtar leh isla markaana si fudud loo heli karo. dhidid baabi'iyuhu wuxuu ka shaqeeyaa isla mar ahaantaana uu awoodaa inuu xidho amaba yareeyo daloolada dhididku ka soo baxo, waana natiijada taasoo yareynaysa xaddiga dhididka ah ee baabicooyinka kadib marka la mariyo. haddii aad u baahan tahay inaad si degdega meesha uga saarto gacmo dhididka, isticmaal alkoosha la mariyo gacmaha, dabeedna ku xoq labadaada baabacood. tan ayaa hanaanka ugu habboon ee si dhaqsaa meesha looga saari karo gacmo dhididka. bootarka carruurta la mariyo waxa uu nuugaa waxyaabaha dareeraha ah sida dhididka, sidaa darteed waxaa la soo jeedinayaa markasta oo aad dareento dhididka gacmaha inaad isticmaasho qadar yar oo aan badnayn oo ah bootarka carruurta. cabitaanka xaddi badan oo biyo ah maalinta oo dhan waxay kaa dhigaysaa qof ka badqaba xaaladaha biyo yaraanta, waxaanay hoos u dhigaysaa heerkulka jidhka, waxaanay kaa caawinaysaa hoos u dhigidda dhididka faraha badan. baking soda waa aalkali dabiiciyan, sidaasoo ay tahay wuxuu dawax qabad leh u yahay gacmo dhididka, iyadoo laysku qasayo 2 ama 3 qaado malqacdood oo bakinka ah, laguna darayo biyo diiran muddo 30 daqiiqo ah, iyadoo laysku xoqayo gacmaha si wada jira. wuxuu ka dhigayaa kuwo qallalan oo aan lahayn wax dhidida. dhexgeli gacmahaaga dhidid kale biyo qabow. biyaha qabow una daa 15 ilaa 20 daqiiqo maalintii. waxaa la hubaa in habkani wax ka tarayo dhibta ka haysata gacmo dhididka. liinta waxaa loo isticmaali karaa siyaabo badan, waxaana loo adeegsan karaa si loo xadido dhibaatada gacmo dhididka oo ay ku jiraan luguhu. soo qaado jiirka liinta, qallaji isla markaana ka dhig budo. waa hab la tijaabiyo oo dawo ka noqon kara gacmo dhididka. khalka laga tuujiyo midhaha tufaaxa mari gacmahaaga tan iyo inta ay ka qalalayaan.
intaa kadib biyo kaga maydh. Habkani wuxuu kaa caawinayaa inuu adkeeyo daloolada maqaarka waxaanu yareynayaa dhididka, waana mid loo baahan yahay in la sameeyo maalin kasta. Tamaandho ama yaanyo la miiray waxay leedahay saameyn ah inay jidhka ay qaboojiso, waxaanay awood u leedahay inay yareyso dhididka. Cab iyada maalin kasta ama dhexdhig gacmahaaga oo mari tamaandho la miiray. Waxaa kale oo ku jirta sodium, taas oo kaa caawinaysa inay gacmahaaga ay noqdaan kuwo qallalan oo aan lahayn wax dhidid. Marka laga hadlayo sida loo yareeyo dhididka, waxaa habboon in meelo badan laga eego, waxaana ka mid ah cuntada. Waxaa hubaal ah in cuntooyinka qaarkood ay sabab u noqon karaan inaad samayso dhidid badan, kuwaasoo ay ka mid yihiin cuntooyinka lagu daro waxyaabaha kulul. Si loo yareeyo dhididka, waxaa lagama maarmaan ah inaad ka fogaato